waxaan soo dhaweynaynaa Axmed Jaamac Cali soo dhaweynaynaa Axmed Jaamac Cali oo ka mid ah musharaxiinta golaha deegaanka haweeye Axmed Jaamac Cali waynu soo dhaweynaynaa sidaas Axmed Jaamac Cali maanta halkan isbaax ayaan ku soo dhaweynaynaa Axmed Jaamac Cali ayaan ku soo dhaweynaynaa dawladdeena cadamay أحمد جامع علي قري وكما قال أحمد قري كان شرحان قولها الديجان كدقمة بالبراء وقت بلارن وهو كامل أيو أيا سعودال كل بحية ديجان لبدن وكميدا قبل كتاب مراد سعودال كان أيا أحمد أي سعود وين تدوين عارو تربدن هذا هو مشرح أيا أنتي وكوكولة ترى سعودال كان وحو عكتا ديجان لا يكمديهين تبا قريالة قعدالة قدوبي بالي عقال بالي موسى قلقل هرشاخ يديجان كلا أوبدن odayaasha waxgaradka haweenka iyo sidoo kale bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaanadan ayaa ahaa kuwa safaf ugu jiray soo dhaweynta musharaxa iyagoo caleemo qoyo watay isla markaana ku dhawaaqayay ereyo soo dhaweyna musharaxa ayaa si qoto dheer u wareystay dadka degan deegaanadan waxaana hadalladii kamid ahaa waxaan soo dhaweynaynaa Axmed Jaamac Cali anagoo ku soo dhaweynaynaa degmada waxa leeyahay balliga boqolkiiba boqol ayaan ku soo dhaweynaynaa waxaan baliyeenaa uu qabanayo annagu haddaan nahay deegaanka balli cigaal waxaa maanta noo yimi oo halkan imika nagula jira isu imaantikan iyo subaxana waxa weeyaan ku soo dhaweynaynaa Axmed Jaamac Cali oo ka mid ah musharaxiinta golaha deegaanka ee degmada Berbera aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa musharaxa maanta halkan noogu yimi oo ah musharaxiin noogu soo horeeyay ee 2001 ugu soo qaabilay tuulada balli cigaal si wanaagsan baan anaguna u qaabilaynaa uguna soo dhaweynaynaa waxa weeye Axmed Jaamac Cali wax badan waxaynu ka cabanaynaa musharaxiinteena Berbera aynu hadda qoraalinkaysano ayaynu ka cabanaynay waxa weeye waynu soo dhaweynaynaa sidaasaan ku soo dhaweynaynaa waanu hambalyeeynaynaa waxtar iyo waqti iyo cod iyo asbuuc walba waanu la garab taagan وانا يسود وانا كينو يسود وطبعا هاي دقمة بالي عقال يضو يسود مشرحين تاع أحمد جامع علي ما أنت هالكن يسبح أيام يسود ويننا سوى ناكسن أو شرف له أيام يسود ويننا كنا قابلين أحمد جامع علي أو كترسن قبل كا ساحل أو مشرحينتي مشرحينتي كلها دقانك ساحل أيام كسر ويننا دولدين عدمي waxaan hadda ku soo dhaweynaynaa sawirka kaamira Axmed Jaamac Cali maanta waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa inamada wafdiga ee noo yimid Axmed Jaamac Cali iyo degmo iyo kalkaaliyaashiisa dalka iyo hadii dadkooda ku tarayaan facayl hay waxaan ku soo dhaweynaynaa niyad furan qalbi furan maskax furan dhan kale musharaxa golaha deegaanka Berbera Axmed Jaamac Cali Guray oo isaguna goob fagaar ah kala hadlayay dadka degan deegaanadan ayaa hadaladiisa waxa kamid ahaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha leh aad nasiiseen ee ilaa maanta noogu taagneedeen iyo waqtigiina qaaliga noo hurteen haddii ilaahay qadaro waxaan ahay musharaxiinta ka mid ah gobolka saaxil waqtiga haddii ilaahay ka dhigo ay dhacayso haddaynu gaadhno biladayda waxaan higsanayo iyo siyaasadahayga maanta kuma soo koobi karayna haddii ilaahay qadaro socdaal dheerna waan soo gallay mid kaloo dheerna waa naga horreeya haddii ilaahay qadaray laakiin maanta waxa iga ballana inaan maanta fikirka iyo aqliga wanaagsan shaqeeyo waxyaalo badan isla eegno oo geeyo una aanay naga noqonne maanta aynu aad waxaynu geenaynana wax la xisaabtamayo ha noqdaan fikir ahaan deegaan ahaan dad la xisaabtamayo iyo musharax la xisaabtamayo oo ku xisaabtamayo dadkoodii in meeshii la geeyo waynu geynay qaar horeba way joogeen qaar kalena waynu ku dabageynaynaa horta doorasho waynu dooranaynaa laakiin ilaahay noo dooro waxaan raalli ka ahay nin allaale ninkii fikir wanaagsan ee wax wanaagsan ummadda u qabanaya wax soo kordhinaya in la taageero dadku maanta idinkaa codkii haya idinkaana kala xulaaya idinkaana garsoorka ah nin walba fikirkiisa ha la weydiiyo wixii lagu kordhinaya ee qalada iyo wixii saxana dee ha loo kala sheego allah idin sharfo
waxaan soo marnay socdaal dheer waxaanu ka soo bilownay magaalooyin badan oo ay ka mid tahay Dabagorayaale Oondhaale Gudubi Balli Muuse Qolqol Balli Cigaal Harasheekh iyo Xasan Qudaar iyo maanta aan joognaa Cadami magaalooyinka horta si aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa aan soo marnay dhammaantood guud ahaan aad baan ugu mahadnaqayaa marka halkan horta rag iyo dumar baa ka hadlay aadna waan ugu mahadnaqayaa dadka bilaadankiina horta waxa jira haday sheegaan ceeb ma qof kastoo wax doonayo bilaadani markuu wax doonayo waxbuu sheegaa way jirtay xildhibaanadii soo maray halkan wax xaqiiqa wax allaale waxay qabteen oo ay kula soo noqdeen ma jirto waa dhab weeyaan wixii dhabana lama qarin karo wax beena ma laakiin maanta haddii maanta anigu aan hadlaayo oo aan maanta halkan joogo anu ma wato fikir ka duwan baan wataa haddii ilaahay la qabto ma noqon doono horta anu ballan weeyaane inaan dadka ka dhex baxo oon ku soo noqon waayo taa ma dhici doonto haddii ilaahay qadaro dadkaygaan la joogayaa dadkaygaan wax la qabayaa dadkaygaan ku soo noqonayaa wax allaale wixii aan dadkayga la qaban karaan la qabanayaa oo ay ugu ballantaasi haddii ilaahay qadaro oo meesha aan ku guulaysto